magaalada Buuhoodle aan ebed ka dhicin qarax noocan oo kala ayaa waxa caawa ka dhacay qarax meel masjid ay ku tukanayeen dadka deegaanka iyadoo isqarxiyaha watay qaraxa oo isku soo xiray walxaha qaraxa isagoo si toos ah u beegsaday gaari ay saarnaayeen Cabdi Fataax Maxamed Cali Rodman oo horey u soo noqday la taliyaha ra'iisul wasaarihii hore Umar Cabdirashiid iyo wasiirka arrimaha gudaha maamulka Khaatumo Ahmed Maxamuud Dolaal isagoo istaajiyay mas'uuliyiinta kadibna uu isqarxiyay xubnaha qaraxa lagu weeraray ayaa ka soo baxay masjid ay salaada maghrib ku soo tukadeen waxaana ii suurta gashay in aanu qadka telefoonka ku wareesto gabar ka dhaweed meesha qaraxa ka dhacay si aan u ogaado meesha wax ka dhaceen waxayna tiri sida tan goobta uu qaraxa ka dhacay goob meel barxad ah oo masjid u dhow oo haddana wada caan ah oo la maro abay ahayd